السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا كسو دوادا جنال كيني أصحابتا الشرفت لي ugu xiran maalmahan dambe waa la waayay maanta waxaan muuqaal looga soo sameeyay jidka wadnaha ee magaalada Muqdisho waxaanan ka socda dhismayaal casri ah oo hadda la dhisay oo maartay aad u qurux badan oo macnaha si casri ah u dhisan dhismayaashii hore ka duwan sidaas darteed waxaan jeclaystay inaan maanta muuqaalka idinkaga soo duubo sida hadda u jeedaan dhismayaashan quruxda badan waa wadada wadnaha ee magaalada Muqdisho waxaa wadnaa barnaamijkeennii weli oo quruxda magaalada Muqdisho ku saabsanaa saa u jeedaan hadda halkan oo kaasa halkan waxaa ku yaala filooyin qurux badan sida u jeedaan maasha Allah filooyinkii hore inay yihiin waa laga dareemayaa laakiin aad ay u qurux badan yihiin marka asxaabta halka waa isgoyskii waxaan hadda ku soo socday Sheekh Ali Suufi waaye meesha ka soo bilaabay muuqaalka sidoo kale wadada Sheekh Ali Suufina muuqaal kaga soo duubay insha Allah waa soo gelin doonaa marka akhyaaray hadda jidkan ayaa rabaa inta ugu muhiimsan inaan intuso halkan waxaa ka muuqda guryihii hore laakiin wadadan oo ujeedaan wada nadiif waaye sida halkan ka aragtaan marka halkan waxaa ku yaala dhismahan oo ujeedaan oo dhismo aad u qurux badan oo casri ah maasha Allah sida guryaha Yurub loo dhismo faanteen oo ujeedin kal iyo laab waaye inkastoo macnaha moota saarna kaamirada macnaha si fiican ugu qaban laakiin maasha Allah marka waxaan ku soconaynaa wadadan akhyaaray waxaan rabaa inaan intuso wadadan mar hore inay kugu dambeysay laga yaabaa guryahan waa guryihii hore ayagana halkaasna waxaa kasii muuqda dhismo asna dheer oo aad u qurux badan waa kaas qolashii hore ee ganacsiyada meesha wadadan wada waxa waaye wadooyinka ugu waaweyn ee ka tirsan tahay magaalada wadada wadnaha baa lagu dhahay isgoyskan waxa waaye asxaabta laga rabaa inay soo sheegaan isgoyskan aad iyo aad maasha Allah marka wadooyinka ugu waaweyn ayay ka tirsan tahay wadadani waxa hadda soo gaarnay dhismihii aad iyo aad u dheer dhismahan maasha Allah dhulku haystaa yar laakiin waa dhismo aad u dheer sida u jeedaan hadda waaw maasha Allah waaye maasha Allah waaye aad iyo aad ayuu dheeryahay sida u jeedaan waaw qaybta hoosena waxa waaye ganacsiyo qaybta sarena waa dhismo aad u dheer sida hadda ka aragtaan halkan intuu sii jirto oo ujeeda dhererkiisa waaw maasha Allah marka halkan waxa ku yaala guryihii hore ayagana dhismayaal hore kuwa waa qadiimi ma fahanteen qadiimi waaye waa soconaa weli waa soconaa marka akhyaarta channelka cusub subscribe saara channelka videodana like saara like-ta in ha badato like-ta ay daraan ma fahanteen subscribe-ka waxa ka muhiimsan like-ta ma fahanteen marka like-ta saara subscribe wax muhiim ah laakiin like-ta muhiim ah ma fahanteen maasha Allah hadda weli waa soconaa ilaa isgoyska Bakaaraha ayaa rabaa muuqaalka inaan intuso isgoyska Bakaaraha hadii waqti hore kugu dambeysay inkastoo isgoyska uu xirnaabo markii waa baabuurtan oo ujeedaan baabuurka meesha wadada dhexdeedu oo ku banjarmaya cilada qabsata kulli xaqan xaafadaha waaye wadadaas xaafadaha galay marka hadda tooskana ku soconaynaa meeshan waxa ku yaala baqaaradii hore meelahan hadda baqaarada saan waxa laga yaabaa marka hore inay aad iyo aad macna u baahayeen xilliyadii hore maartay meeshan basaska ayagana laga raaco sida halkan ka aragtaan makhaayado dhismayaal hore oo dabaq yar ah meeshan basaska laga raacaa bas leeba taagan kulligeeda dadka marka magaalada soo galaan hadda waxa imaanay Bakaaraha aan ku dhownahay kaalintan waxa waaye Bakaaraha sida u jeedaa ku qoran tahay isgoyska Bakaaraha imaanay laakiin dhibaato jirta waxay tahay Bakaaraha waxa ka socda dhisme wadada ayaa la rabaa in dib u habeen lagu sameeyo oo wadada way xiran tahay fahanteen sidaas darteed waxay noqotay inaan meesha ka laabano marka waxaan jeclaystay wadadan horta wada dheer waaye macnaha wadadan hadaa dhahno wadadan gaarayna waqti badan inuu qaadanay maxaa yeelay jardiinka sii mare sanco siinay wadadan macnaha Bakaaraha ay tagay ma dhow wadadan fahanteen marka hadda Bakaaraha imaanay isgoyska Bakaaraha marka si u jeedo mootooyinka waa laga celinayay waxa jeclaysan inaan ka laabano sida hadda halkan ka aragtaan wadadii ayaan ka laabanaynaa
bakaaraha lo' baa wuxuu ku haysta lo'dan wax keena waa suuq qudaarta meesha dhinaca bakaaraha suuq qudaarta waaye marka qudaartaas ay macnaa wixii qofka ka dhacay iyo waxaasay cuneen ma fahanteen marka muuqaalka maadaama hadda soo laabanay waxaa is dhahay asxaabta waxa u duubtaa dhinacan kalena waxyaabo badan oo ku yaala mugtaa marka waxaa is dhahay akhyaarta dhinacan kalena u duub dhinacan kale xataa ma yareysto dhismayaal badan oo waaweyn ayaa ku yaala maasha allah dhinacan hoomiga laga raraa ama BL sida u taqaanid dhinacan kalena basa laga raraa caadi maaha ku dhaam fahanteen marka akhyaarta waa dhinacii kale ku soconaa ilaa waxaan ku laaban doonaa isgoyska Sheekh Cali Suufi sidoo kale Sheekh Cali Suufi muuqaalan ka soo duubay waa soo wadaa insha Allah gaabka yar ee channel ka soo dhaxgalay maalmahan muuqaalaan soo gelinin waxa way ana iska xanuunsanaa ma fahanteen laakiin insha Allah waa soo gelgelinaya muuqaalay diyaarsanaa jira oo aan wali soo haabeenin ma fahanteen marka kuwaas aan soo gelin waayay waxa hadda kadib soo duubayo culays igu sii noqdeen waxay ka rabaa marka meel qurux badan oo la soo duubana soo sheegay comment ku soo sheegay meel dhadhow dadka qaar oo meelaha fogfog iyo daraayo meelahaas waqti iyo qarash ay u baahin laakiin magaalada dhexdeeda meelahana oo inta mooto la qaato soo duubi karo soo sheegay waa soo kala kicina ma fahanteen waaw meesha waa ujeedin saaxiibayaal A2Z Sports House waa maasha Allah shirkadda oo sports ka bixisaa funaanadaha iyo waxyaabahaas markii koobka la ciyaarayo sida Goal FM iyo maaragtay adiga astaan sports meeshan waxa ku yaala dhismayaal kale ayagan aad iyo aad u waaweyn marka akhyaaray dhinacii kale ku soconaa wali aad iyo aad ugu maasantiin sida channelka ula socotaan haddaaba halkaa ila soo gaartay waxa waaye si waxa ila socotaan caadi ahayn like tailo marka Al-Furaaq Dental Clinic ayaa mareynaa marka akhyarta aad iyo aad ugu maasantiin saaxiibkiina keedin dhahaya nabaday